liintan haddaan caanahan ku daro maxaa dhacaya waa caano khalli ah liin iyo shukulaato ama geedo kale oo waddankiina ku yaala haddii caanaha lagu daro geedaha ka bacdina liinta lagu daro maxaa dhacaya miyaad barateen way jiraane baadha ka bacdina waxaa is weydiisaan maxay u kala go'i waayeen caanahan marka geedo kale lagu daray oo waddankiina ku yaala barnaamijku wuxuu ku aadan yahay odayaal dhaqameedka Puntland iyo Sool iyo Sanaag garaadada barakaysan baarlamaanka barakaysan oo ku shiraya Garowe ayaan ka dhiibanaynaa taxliil barakaysan tusaale aan ka dhiibanaynaa okay waxaan tala siinaynaa garaadada iyo odayaal dhaqameedka reer Puntland ee barakaysan ee Boqor Burhaan hogaaminayo Boqor Burhaanow waa daahday inaad mar hore shirka qabatay ahayd adeerow caanaha sida loo cabo biyaha sida loo cabo caafimaadka nolosha hurdada raaxada biyaha shaawarka intaasoo dhan waan naqaanaa haddaynu weyno inaan dhimanayno laakiin waxaan idin dareensiinayaa garashadaada codkaaga rabitaankaaga oo caafimaad bii'ada u ah haddaad qariso ma la socotaa inay ka fiican tahay caafimaadka inay uga fiican tahay bii'ada uga fiican tahay codkaaga waxaad aaminsan tahay inaad bulshada u soo bandhigto oodan la gaban xamse ra'iisul wasaaraha barakaysan oon taageersanahay wax badan oon ku raacsanahay yasmaan inuu madaxweynihiisa u ahaado si aan uga baxno qabqabsigan iyo liintan iyo caanahan la isku daray ee kala go'aysa laba ishaysto uun ku dhammaysanayna waqtiga waxaan caddaynayaa oo kale xamse inaan ku raacsanahay in arrinta hortaan ku horreeya garaadada iyo dhaqameedka Boqor Burhaanow waa daahday talaan idin siin iyo tusaale shirka Garowe aad ku qabataan waan idinku raacsanahay waan idinku ducayn waxaa kale oon idinka rabnaa inaad soo saartaan shirka ku xiga inuu ahaado shir daarood Ismaaciil jabarti caddayso maxaad ka shaqayn raganimada iyo runta baan ka shaqaynaynaa shirka ku xiga inuu ahaado irin Samaale samawada Samaale Soomaali oo ah kolka u horeysa biqilka u horeysa meesha ugu hooseysa daarood Ismaaciil haqrin daarood Ismaaciil odayaashooda culimadooda dhalinyarada cuslaatay kuwa yaryar ururka dhalinyarada qurba joog iyo guri joog geeska Afrika caalamka oo dhan haddaanu nahay odayaal dhaqameed haddaanu nahay culimada haddaanu nahay qurba joogta haddaanu nahay hooyooyinka ururka hooyooyinka waxaanu ictiraafnay inay Sool iyo Sanaag iyo Cayn Puntland mataano la ahaato Somaliland mataana la ahaato waxa siman Puntland iyo Sool iyo Sanaag iyo Cayn baa siman oo ka sareysaba Sool baa ka sareysa iyo Sanaag oo aabbo u ah waa hooyadii xornimada waa hooyadii raganimada waa raganimada Soomaaliyeed waa meeshii Soomaali laga xoreeyay waa saldhigii geeska Afrika waa inay ka sareysaa Puntland iyo Somaliland garaado ugaasiyo odayaal dhaqameed haddii siyaasiyiintiina iyo odayaal dhaqameedkiina ay u qarsoon tahay inay Puntland horta salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu الله خاتمة خير نوgu khatim magaca jaamacadda cagaaran ee rasmiga ah ee aakhiriya adduunba waxa la yiraahaa Allah khaatimada khayr noogu khatim okay CG ama GC4 waxa loo soo gaabiyay Allah nagu astur jidadka raganimada Allah na tus oo nagu toosi jidadka jannada aakhiriya adduunba magacan khaatimo jaamacadda cagaaran waxay wadatay ilaa maalinkay aqliisatay ilaa maanta qoladii aan ugu jeclaana ilaahay waa ku toosiyay reer khaatimo qubayn tiri dhageysa marka reer khaatimo maxaan idin jeclahay siyaad can zoom
magacan ayaa qiimi iigu fadhiyaa magacan ayaa duco badan aan ilaahay ka baryay ilaahay waa aqbalay meelo badan kuwa dambana waa aqbali doonaa waxaynu isku raaxsanahay haddaynu nahay bulshada afka Soomaaliya ku hadasha ee daarood Ismaaciil iyo waxay dhaleen iyo waxa la dhashay iyo waxa ka naxaya iyo waxa Soomaale samawada la ninku haduuna Soomaale samawada Soomaali ahayn ma aha Soomaali yaa idinka Soomaalaysan okay go'aanka ku xiga waa inuu ahaado daarood oo dhan inta ay sheegay oo ictiraafay jamacada cagaaran way ictiraafsan tahay khaatuma state oo ka wada sareeya Soomaalidan qabiilka ah waa jabhada kaliya taageersanahay waa gobolka kaliya ku taageersanahay midnimada Soomaaliyeed waxaanu ictiraafnay oo nu ogolnahay annagoo odayaal dhaqameedkii ah khaatuma state inaad fermayso ayaan ka rabaa burhaan okay garaad kulmiye jigjiga NFD Djibouti wariyana raacaya muqdisho yaan raacaya dawladda Soomaaliyeed way dulantay khaatuma waan isku raacsanahay mar haday dawladii ictiraafi weyday ama ay dulansan tahay oy la gaban codkeeda iyo raganimadeeda haddaanu nahay qabiil daarooda waanu ictiraafnay dhaqan kasta culimada reewqooyi way gaabiyeen culimada daarood yana gaabinin ictiraafa oday dhaqameedka ictiraafa hooyooyinka ictiraafa dhalinyarada qurba joogta ictiraafa kuwa gudaha ictiraafa haddii taa aad ku dhaqaaqdaan dabahaasaanu wada maraynaa haddaanu Soomaali nahay uma baahnin dawladda okay khaatuma state ma doonayna inay hoos tagto hargeysa hoos imanaysa Puntland baa hoos tagi khaatumo haddii la isxiniin taaban haddii run laga hadli haddii xaq laga hadli markii la xisaabtami haddii Soomaalnimo loo xisaabtami haddii raganimo loo xisaabtami labadaasi Puntland iyo Somaliland waxay hoos tagi khaatumo haddii kale waraadar han isdayno waynu simanahay anagoo dhan baa khaatuma raganimada khaatuma runta khaatuma okay Soomaali u hiili baa khaatuma waraadar Soomaaliyeed ninkii ku soo biiraya ninka ku soo biiroon ku abtirso doqonnimada kala faquuqa iri Soomaalaha qurmoonka ku abtirso ee Soomaali kala kaxaynaya inta odayaal dhaqameedkan leeyahay ka dheeraada inaad doonaysaan inay idin hoos timaado khaatumo reer Majeerteeno reer Puntland Maxamuud Saleemaano boqor Burhaano haday taasi dadka aad boqorka u tahay gaar ahaan reer Puntland ay u qarsoon tahay adeero sida kiniinka hawl liqaan no saddex kun iyo kow jeer hal liqaan sida kiniinka loo liqo hal loo liqo inta ma ku daaya dani daan dhagax waan ku raacsanahay qodbadiisii uu la daahay dani laba jeer baan ictiraafay oo u duceeyay inta kale oo dhan reject ma idah okay ictiraaf uma baahno Xasan Sheekh markaas uma baahnin annaga u baahnayn wuu na xaqiray uma baahnin waxaan soo noqonayaa Xamse ra'iisul wasaaraha barakaysan ee Soomaaliya Xamse waxaan raali ka ahay inaad is-caasisho mar labaad haddii Xasan Sheekh waxaan maqlay xulxud ma runba ma beenba ma garanayo waxa la ii soo diray adiga Xasan Sheekh waxaad ku khilaafsantihiin kada khaatuma state xaqeeda hansiino iyo lufow dawaraani uu ka bixilay Xasan Sheekh Xamse goob raganimo isku casil Xasan Sheekh wax kasta inaad yesbaan u ahaato waan ogolahay laakiin arinta sool iyo sanaag iyo cayn no haddii Xasan Sheekh uu ka diiday xaqii ay lahayd in la siiyo iscasil inta tagto xafiiska madaxweynaha warqada casilaada qadi kana duul muqdisho khaatuma iska diyaari madaxweynaha future ka noqon doonta madaxweynaha khaatuma u tartan okay daarad muxuu ku haysaa Soomaha waxaad u hiilin weyday booski ragii aad u fadhiday khaatumo inta tagto halka isku sharax maxaad ku fali caasimadan urtay unu kaale war caasimadan dhabta waa sool iyo sanaag iyo khaatumo waa xeradii daraawiishta Xamse haddii ay run tahay oo Xasan Sheekh taa uu kugu bushkaray inaad mugdiga ku jirtaan diid iscasil si
ككدن بي دارودنا اوكي بلوحو كينا ارغنو دبا رغنا ما جيح خاتمو arrinteedu adeerow waxay la mid tahay nolosha inaan qariso oo ka aamusnaato oo sida lagu eriyo waa fool xumo okay ama laga keeno motion waraadu isaga motion xasanow tan waan ka diiday xeradanba waa xeradii heerka khaatmada lagu sheegiba waa xera kumade rubaanta ma bale adeerow iska dhaaf daarood khaatumo waa xera kumade وماشي الحلقة عن أوجن وقدر دارمي بالبهانته هو كنا قدان محن كراها حرة دارو حرة محن كراها مجرتين إلا مجرتين كلمة مجرتين وحبرتي سوما إنكسين له يا هين أوكي حلقة أي حق ليهين إن بوساس يجروا حرة لاس عارض يحرد الدراويشته وبحرد أي كسو بحين مرفوض بيسي أبصام كومري وهذا حرة كومة دارود بماه كم الله بماه هذا هو حرة كومة يدور كورسان وين سألو شجع أبغى هلا سودو أوكي أنت أصلاً صوت قلي جرددا يؤذي الرقمات ككشرية next time ودارود أردن علم ذودا عقاش ذودا سياسيين ذودا دليل ذودا أبوانين ذودا تقنية فريد كودا مرافق إيه مؤمن كودا وحي اعترافين صول إيه السناق إنه استيد أحاطه مقدشة كسر رئيسة أو هجيجي كسر رئيسة أو هرقيسة كسر رئيسة أنت عم يسور رعنا أنت وحان راعنا يا وحان لي صدري نين أبوان دير هنا أيان أوغاه أو جفتي إلهي سيي برمان خدع برحا وحان كانوا لي صدري نين ليلاهو ورمج عيقوي نين ريكو مضاعة أو رير أوغادينا أو ديبورين أو جفتي إلهي سيي لكن نعضل صيرية مجلس ويجويه ونما كده بيجو وقول أمينا يو عاية لا ذكر راعي أوان كأوان هلا عمر دقيستي لين وليريضي لكن رجعني ما كان موقته أو مجرتين كفوا هذه أدارو نينكم مركو يوان دقالما يا نينكم مركو ياهو وحبان إسكدعي نعسكنا نعس كبرحنا وإسعدين ninka ragana uu iscadeyn wariyaa la doogayaan la dacaroon baashan marka la yiraahdo siyaasadda marka la yiraahdo reerka daarood waxa iska leh adeer ma jeerteen ama liq ama haliqin doqon ogaadeeno doqon kuumadow abwaan kuumadow ama liq ama haliqin gabaygaaga iyo isceliskaagu yuuna dhiiri ku gelin ninka TikTok haysta la isoo diray kuumade caytamayo waan jeclaaday meelo badan oo istaahilay ma jeertaanku laakiin xuruuf xaraan ah yaa ka buuxa oo la dhageysan karin nacdali ha kugu dhacdo wareerayga nacdal abwaan baa tahay maxaad u fahmi weeyday xigmadda uu leeyahay kada kaana maasiyad igaasiya ninka ma jeerteen aad u caayaya ma jeerteen waa gobta Soomaaliyeed waa gobta daarood waa gobta kablalah hunguriga Maxamuud Salmaan uu dhaamaa doqonka kablalah ودama doqolka absame okay warnin kasta oo majeerteena oo istagaalo 24 oo ku heshiina iska dhaaf absame doqonkooda fariidkoona la heshiin fariidka kuumada waxa uu taliya doqonka oo biila marka ayda faraha badan ee majeerteen caayso adarkada kuma raacsan anoo qaadunka noolaha garaadkaagi baan ahay qaadunka noolaha ahay bii'adan u dagaalamaa erayada nijaasta ah ee ka buuxa afkaaga niyo adaa isduqayn adaa god kan galaya kada magaciisa waa igooye kada 5-8 qof ay soo dirtay oo tiri ninka qiime kuwaana waxaan u sheegayaa ninkaasi in waa nin cadaysan waa nin hunguriga Maxamuud Salmaan ciilay ra'iisul wasaaraha ma iska daynaysaa ma jeerteen oo dagaal baan ku jira intaan Soomaaliya salaag in xoreeyno adeero iska daaya marxuunkan idinka dhan marxuun noqda ma jeertaano idinka dhan marxuun noqda si aanu u helno midna Soomaaliyeed si aynu ugu samiro waa inaynu hawiye marxuun u noqono hawiye si ay u guuleystaan dawlad Soomaaliyeed ama dir war idinka la idima rabo daaroodo la idima rabo oo ma jeertaano waa la idin nacay
oo majeerteen oo idinka laftiina haddaan maanta idhaaho dagaal ha lagu qaado majeerteen jin iyo insi baa raacaya hawiye se u dhan yahay u doofaylaya idoor suu dhan yahay sheekh iyo shariif ugu doofaylaya asharaaf jareer war wax xari ma jiro haddaa idhaa Soomaali aan ku duulno majeerteen laakiin deynaadan waxaan ogahay ya kuwa igula duulayay raacaya iyo doqon badan oo absaba ah inuu raganimada kugu nacay laakiin aad bahashan doqonnimada ah ee guriga ah ee bahashan doonaysaan idinku inaad dhaaridaan war way dhamaatay aada koobkii caanaheed cabayseen ee wasaaraha iyo madaxweynihii way dhamaatay war ra'iisul wasaarahan iska daa madaxweynaha soo socda ayaan shaqo ku lahayn inta haydin deeqdo qub haydin tiraaho okay samadoon xaal baan idinka siinayaa nin abwaan lagu sheegay ma abwaan lagu abwaan waayahay oo kala kuumada ah oo si xun u caytamaya ayaa la ii soo diray xaal iyo xumayn boqortooyada ayaan siinayaa adeerow aqliga iyo garashada iyo siyaasadda markii dhabta aan la dafirayn waa ma jeerteen ogaadeen dhaka weyne adeerow mugdi baad ku jirtaa nimanku hadday gardaran yihiin waan qabanaynaa laakiin ayda noocaasa ma istaahilaan dani caddaan ninkii loo horay dani daan dhagax waaban ka bedelayaa dani daan dhagax dani daan jilic baan u bixinayaa taana armay ay noqotaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa in salaamay